Safar gaaban oo aan ku tagay magaalada Baqbinyo ee dalka Faransiiska oo aan kula kulmay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ahaa dadkii ugu dambeeyay ee dowladda Denmark sharciga kala noqotay dabyaqadii sanadkii 2017. Sanadka markuu ahaa 2017 ayaa waxaa dowladda Denmark sharci kala noqotay 1200 qof oo Soomaali ah kuwaasi oo qaarkooda Soomaaliya dib loogu celiyay halka kuwa kalena ay iska dhiibeen wadamada kale ee midowga Yurub. Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu ka mid yahay boqolaalka qof ee Soomaaliyeed ee dowladda Denmark ee kala noqotay sharciga sanadii 2018 ayaa maanta kula kulmay magaalada Baqbinyo ee wadanka Faransiiska ayaa iga warbixiyay muddadii uu joogay dalka Denmark iyo waxyaabihii uu kala kulmay. Cabdullaahi ku soo dhawow telefishinka Somali Cable. waa ku dhawahay aways oo maasan tahay. Cabdullaahi waxaad iga warbixisaa dowladda Denmark maxay kaagala noqdeen sharciga? aways wallahi ma garanayo laakiin haddii aan qiyaaso aniga Cabdullaahi ahaan haddii aan qiyaaso waxay igala noqdeen sharciga Soomaali cayb iyo midabta koor oo kaleeto waxa ah niman cunsuriye ah ayaa wadanka qabsaday talada wadanka qabsaday marka ayaga macnaha jeclaystay inay wadanka ka saaraan muslimiinta iyo wax madow magartay markii ay sharciga kala noqonayeen sanadkii ayuu ahaa aways 2018 ayuu ahaa xilligii ay sharciga noqdeen 17kii dhamaadkeedii ayay warqad isoo direen Cabdullaahi sharciga kala noqonay marka adiga xilligaas ayuu marka maxkamadii waxaan tagay marka xilligaas ayay macnaha ahayd laakiin marka wadanka ka soo baxay ee sharciga ishteen 2018kii bilowgeedii bishii koowaad ayay waa tahay sababta ma ku sheegeen ay sharciga kala noqdeen markaas wallahi aways ima sheegin waxay yiraahdeen waxaad ka mid tahay 1200 oo Soomaali ah oo sharciga dib looga noqsaday ayaad ka mid tahay saas darteed ayaan sharci kaga ishnay wax kale oo faahfaahin ah iyo mas'uul aways waa gartay marka muddo intee leeg ayaa ku nooleed ama aad joogtay dalka Denmark wallahi aways waxaan joogay muddo ku dhawaad 5 sano ayaan joogay Denmark markii sharciga ishnay waa gartay ma jiraan asxaabtaadii ama qof aad garanayso oo Soomaaliya la geeyay ama dib loogu celiyay wajahna oo soo buuxan sawiran ayaan hayaa taleefankayga ku jira aways waxay ka koobanahay shaqo ka koobanahay aniga ma ahana afar kamid ah Soomaaliya jooga maanta aways marka dareemi kartaa dadkii intii aanan aqoon waa dareemi kartaa waa gartay adiga qaab caynkii ah ayaa kaga badbaaday maadaama saaxiibadaadii aad hal meel wada joogteen oo maanta Soomaaliya dib loogu celiyay adiga maxay kugu saamaxday in aad dalka Denmark aad dib ugu soo cararto Faransa imaado maxaana sababay wallahi aways waa su'aal fiican oo isweydiin mudan laakiin aways waxaa jiro in waxaan waa process meel ayuu ka bilowdaa meel ayuu ku dhamaadaa wata nasiib wanaag aniga waxaan noqday dadkii ugu dambeeyay ee loo yeero wata marka dadkii la qabtay oo Soomaali loo celiyay amba dhibaato badan ay gaartay waa dadkii lagu bilaabay qabtan dadkii lagu bilaabay ayaa Soomaaliya ka tagay aniga waxaan ku jiray ugu dambeeyay ee loo yeero aways wata sababtoo ayaan u baaday inaan isleeyahay Cabdullaahi dadka ka dambeeyay ay doonayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay doonayaan inay dalka yimaadaan qaaradda Yurub maxaad ugu baaqaysaa aways horta aniga Cabdullaahi Yuusuf ahaan waxaan qof muwaadin ah adduunka ugu jecel dadkiisa iyo dalkiisa iyo dinta aways dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay qorbo wax la soo aado ma laha laakiin haddii aad yeelaynina oo adiga aad ka go'in inaad joogin ka go'in waa iman kartaa Cabdullaahi aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad igaga ogolaatay wareysiga inaan kula yeesho waan kaaga mahadcelinayaa oo sidoo kale aways Said Abu telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Baqbinyo ee dalkani Faransa.